barnaamijka dhallinyarada maanta. halkani waa washington, laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com. duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin sabti ah 8 bisha Febraayo ee sanadka 2020. saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1 iyo barka duhurnimo. idaacadeena duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idiin haynana waxaa ka mida barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aynu ku eegi doonno dood ku saabsan faa'iidooyinka iyo khasaaraha uu dhallinyarada soomaalida u leeyahay barta muuqaalada lagu wadaago ee youtube. horta qofka waxaa laga rabaa youtube markuu samaysanayo inuu 4 kun oo views helo iyo 1 subscribe kadib markaas kadib ay ku bilaabanaysaa lacagta. dhalinyarada shaqalaanta ku caawanaysa oo taariibka u meesina ku ordayaan bahalka youtube-ka leeyahay qalab ma rabo, kaamirad balaayka ma rabo, moobilka hadda haysto asaga kugu filan ba inaad horumar iskaasho lacagna shaqayso. haddana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhalinyarada, waxaana magaalada Boosaaso ku soo diyaariyay Yuusuf Maxamuud Yuusuf. oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhalinyarada oo toddobaad walba xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a. barnaamijka toddobaadkan waxaan uga hadli doonnaa maxaa caqabadaha ay la kulmaan qaar ka mid a dhalinyarada magaalada Boosaaso ee youtubeleyda ah, islamarkaana muuqaalo ay soo duubaan geliya youtube-ka si ay dhaqaale uga sameeyaan islamarkaana ay ku madadaaliyaan dadka ku xihan bartooda. maxamed sakariya cabdulaahi iyo sakariya siciid axmed waxay ka mid yihiin dhalinyarada magaalada Boosaaso ee isticmaala baraha youtube-ka islamarkaana muuqaalaha ay duubaan geliya. toddobaadkan ayaan ku waraysanay barnaamijka madasha dhalinyarada. ugu horreyna waxaan weydiiyey waxyaabaha ku kallifay in ay samaystaan youtube iyo caqabadaha ay kala kulmaan xilliyada ay duubayaan muuqaalada si ay barahooda bulshada u geliyaan. waan mahadsan tahay markoodii mar labaad Yuusuf, adiga dhammaan dhegaystayaasha. sababtu wax walba waxbay ku yimaadaan ma garatay. sababtu ay ugu kalaftay waxay tahay inaan shaqaalnimo ka baxo. sababtu maanta dalka shaqalaan buu leeyahay, laakiin tan waa shaqaan u madax bannaanahay oo xilligaan raba soo kici karo, xilligaan wax duuban karo, xilliga meeshaan rabaa mari karo. sababtaas ayay ugu kalaftay. waana jeclahay in aan dadka dhalinyarada ugu faa'iideeyo, aan u sheego waana shaqo aad u macaan runtii. sababtaa waxay ka fadli badan tahay ama ka macaan tahay ama ka fiican tahay isdhiigra nin ganacsado markabka badda soo marsiinaya. sababta aduu hurdu fiidiyoga kugu soconaya, qarashna kugu soconaya. waa shaqo aad u macaan baan dhihi karaa. inkastoo ogna maanta shaqooyinka jira inay yihiin qabiil iyo balaayo ay ku xiran tahay, dhib badan tahay in la helo. haddaa heshana waqtiga maxaa usoo dahday maxaa kan u yeeli lagu bajaqinay ay leedahay. laakiin maanta shaqaa u madax bannaanahay saaxiib, muddo 2 sana wada maasha allah, aad bay ugu kala kacsataa saaxiib. waxaan soo dhaweynaya isna sakariye siciid axmed oo ka mid a dhalinyarada magaalada Boosaaso islamarkaana ah dhalinyarada ku shaqaysta filimaanta duubageliya baraha youtube-ka. sakariye maxaa kugu kalifa adiga ugu horreyn inaad samaysatid youtube? dhammaan horta ugu horreyn Yuusuf, adiga iyo v o a idaacadda v o a horta dhammaan waa salaamaya iyo ummadda Soomaaliya meel walba joogaan. Yuusuf horta aniga waxay igu kalifay runtii markaan arkay hibadayda iyo talentiga aan leeyahay si aan bulshada wax ugu soo gudbiyo inaan youtube samaysto. fikirka igu jira si mataqaanaa waxa weeye si official anigu aan ugu shaqaysto oo mataqaanaa barnaamijyadayda iyo talentiga iyo waxa igubaya aan bulshada u soo bandhigo. runtii saaxiibkay maxamed sakariye iyo aniguba waxa weeye waxaan mar walba jecel lahay inaan horumarno oon mataqaanaa barnaamijyadeena iyo talantigeenna aan bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan aan gaarsiino. haddeerna waa ku guda jirnaa guud ahaan barnaamijyada hadda aan soo dhigano waa la xiiseeyaa. kuwo kaloo qurux badan oo ummadda qanciyana waan jeclahay inaan soo dhigno, haddana waa soo wada insha allah. waa mahadsantahay sakariye siciid axmed. waxay sheegtay in muddo 2 sana aad ku shaqaysanaysay baraha youtube-ka oo muuqaalada la geliyo, bal dad badan baa ku dhegaysanaya. xilligaad bilowday iyo xilligan maxaa is oran ka dhaha waxyaabaha u dhexeeya oo muxuu ahaye difference ama farqiya?
wallaahi farqiga aad buu u badan yahay saaxiib sababtoo ah markaan bilaabayay 2 qofood 3 qofood baa muuqaalka daawo jirtay isbuuc markuu yaalo murug bay qaban jirtay maantana muuqaalka markaa dhigo waxaa isla dhigi kartaa isbuuc 100 kun buu jarayaa ma garatay waa waxa aad ugu farxi karo saaxiib dee haddana dunidu waa horumartay teknolojiyadu waa ujeedaa casriga la maray waa goor caleemaha la xinjaa hadda maanta dhar baa la xirinayaa amaamaha jirtana waxay ahayd dunidu waa laba ay u qabsan tahay ama jilaacaan inaan ka noqdo ama daawado sharaf leh markaanuu jilaacaan baa daawado sharafta waxaan leeyahay dee halka wanaagsan lii wado waxyaabahaad geliso xaggee ka keentaa ma waxaa jira dhalinyaro kale oo aad uga faa'iidaysid youtube-kaaga oo dhaqaale aad ku siisid muuqaalada kuusoo duuba aad adigu siid gelisid bal faahfaahin noocaas nagasi way jiraan wada dhalinyaro far keliya fool ma dhaqdo dhalinyaro badan baa jirta way la shaqaysaa ma garatay laakiin qofka waxaa dhiid karaya jarjara waa aniga 99% iyo 9 wax sidii kala maskaxdeeda wax ka timaadaa sababta heese iyo waxyaalo badan aan duubno way jiraan boqolaal ma fahanti dad badan way la shaqeeyaan aad baan ugu mahad celinaya ayagana shaqa abuur usme dhalinyaro badan baa jirta youtube oo farmaanta ilaa dhowr iyo toban xisaabi karo oo ayagana ma xataa shaqsiyaantooda lacagta loo soo aqbalay oo shaqaysta baa jira oo ii yimaado waxay la duubto ay la shaqaystaa waa jirtaa sikriya ayaan siinaysan sikriya adigana ma u malaynaysaa inaad kaga baahi bixi kartid wax walba aad uga baahan tahay inaad ka hesho magaalada haddii ahaan lahayd shaqooyin aad magaalada ka heshid youtube-ka ma ka heshay dhaqaalo kugu filan noloshaada maarayn ka dha horta yuusufow aad baad u mahadsan tahay dhaqaalihii horta niyahow horta adduunka arkaysid step by step weeye hadda aniga youtube-kaygu qofka horta qofka waxaa laga rabaa youtube marku uu samaysanayo inuu 4 mataqaanaa 1,000 of views helo iyo 1,000 subscribe kadib bay ku bilaabanaysaa lacagta hadda anigu intii waa haystaa lacagtu dee horta khasab maaha viewskaaga ku xiran tahay markii aan mar dhow waan bilaabay curdin baan ahay waxaan jecelahay marka ummadda soomaaliya meel walba naga dhegaysanaya inay noo sii sheergareeyaan mataqaanaa youtube-keenna annagoo dhallinyarada magaalada boosaaso deegaanada puntland gaar ahaan dalka soomaaliya joogna waan isdhihi karaa yuusuf way kaafin kadhaa waayo waxa weeye dee wax adigoo gurigaaga iska fadhiya aad samaynaysid dee markaad soo kacdiba aad video qurux badan aad bulshada soomaaliyeed wixii maskaxdaada kusoo maaxday oo taalantiya aad usii gudbanaysid dee waxaa isdhihi karaa wax waa ka samayn kadhaa wayna kaafin kadhaa noloshaada marka waa kaa yuusuf waxyaabahaad gelisay maxaa ka mid ah oo aad dadka u gelisid oo dadku ay sii daawadaan bartaada youtube-ka yuusufo waxaa ka mida runtii riwaayado oo kale challenge oo kale heese bilaa muusig oo anugu dee codka heybada ilaahay anagu aanay ilaahay ii siiya oo aan bulshada aan ku qanciyo waxaa kaloo ka mid a barnaamijyo badan baa jira oo runtii short films yar oo brankiyo howlo badan baa jira youtube-ka dee hal mid kuma ekaanaysa maalinba barnaamij cusub baad soo sii daynaysaa hadba wixii mataqaanaa ay bulshadu xiiseynayso atleast adiga waxaa ku xiran tahay bulshadu wixii ay xiiseynayso marka ay rabto bulshadu baad u sii daynaysaa marka waa kaa yuusuf ma jiraan intaad ku guda jidheen duubista muuqaalada magaalada boosaaso caqabado idinka soo wajahay oo ku aadan inaad dadka kala kulantaan waxyaabo kale oo ku saabsan inaysan wanaagsaneyn wallaahi wax badan sababta waxaad isdhigi kartaa dadka hadda maanta soomaaliya ku noolba ma aaminsana 100% youtube-ka in qarash laga shaqayn karo wax la duuba yahay xag ammaano tiro dhib way iska jirtaa marka qaar oo aysaha markaa duubisho kale waxyaalo xun fasaad oo kale u arkaan xagga magaalada meelaha bilicda goobaha quruxda badan oo kale way jirtaa hadda isbuucii hore kale dhibaato nagu dhacday baa jirta 7 kilomitir baan soconay maandiq meel leh baan tagnay markaa tan wax leeyahay kaamirada lama ogola caqabad ku gabalkan oo nagu dhacay meel kale aan u bedelna ma lahayn caqabado way iska badan yihiin laakiin dee dhib male wax walba dabar adeeg iyo dulqaad bay iska rabaan saaxiib ma garatay dulqaadkana iska badan insha Allah waana gaari doonaa marna ka barto wax badan oo loo fasaxo sidee uga gudubtaan marka caqabadahaas idinku soo dhaca intaad ku guda jirin caqabada oo kaliya ba jira mise caqabado kale jira والله way farabadiin xitaa marar qaar xabado kala la kulana waxyaalo badan baa jira heesan duubeen oo kala xabadii waa hayna xitaa fiidiyoodii ma garatay laakiin de wax walba waxay tahay waqtiga taa marka maarno bari waan ka tashanayo dhinac kale u bedelnaa marka mar walba ilaa ma soconayso shii sababta magaalada hadda 190 dadku waxay ga cusaan daawadayaasheeda ma meesha fadhido badana gurigeyba u badan tahay fiidiyo waxaan ku doo meesha iska bedeshay magaalada tagtid de goobaha ugu qurbada magaalada 100% lama ogola kaamirada xataa sawirada baa la ogolaa photograph dhalinyar dhib ka istaa laakiin waxaad dhigtaa magaalada ganacsatadii iyo kaamirada isma fahansana sababta ninka maanta meeshan quruxda doon beerta meel ku faysamaystay hadii fiideo lagu duubo asaga waxay siin bay u tahay oo sababta dhalinyarada baa arkay meeshan quruxda doon goobta magaalada inay ka tirsantahay bilic dadku way arkayaan dadku waxay go'aansan bilicdina soo bandhiga malaxan soo bandhiga meel israacdisana bilic soo bandhigi kartid laakiin waxa weeye insha Allah dadkii waxaan isleenahay ilaahay isbaro sakri adigana intaad ku guda jiray maxaa caqabada ah oo kala kulantay intaad muuqaalada duubaysay magaalada Boosaaso si aad ugu soo bandhigtid bartaada YouTube-ka yuusuf horta waa mahadsan tahay horta caqabaduhu waa badan yihiin dadkan deegaanada puntland joogana badanaa 90% dad bisil maaha
hadda ka soo qaadoo kale meel bilicle oo kale inaad tagtid ama meel mataqaanaa qurux badan haddii aad tagtid oo kale aad damacdid inaad video ku duubatid waxay moodaya inaad ayada waraysi ka qaadaysid ama inaad adiga waxa weye awarka gudbinaysid marka sistame mataqaanaa barnaamijyada jira waa waxyaalaha caqabadaha ugu waaweyn caqabadahaasaa ka mid a oo meelihii bilicda lahaa markii aad tagtid waayo bulshadii waxay kaa rabtaa wax qurux badan inaad tustid magaaladii ilaa waxaa laga yaabaa inay 100,000 oo qof kugu xidhan tahay 100,000 oo qof boosaaso bilicdeedii ma fahansana dadkani moogtahay haddeer laakiin insha allah waxaan jecelnaha markay ummaddan ay dhegaystaan inay fahmaan waxa weye caqabadda ay dhallinyarada ka qaadaan insha allah waa tahay weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka madasha dhallinyarada ee idaacadda v o a waa tahay waxaa rabaa ninkan dhallinyarada inaa isna siiyo su-aasha xigta maxamed sakariya cabdulaahi waxay idin sheegtay inaad xilligan aad dhaqaalo ka hesho dadweyne badan ayaa isweydiinaya inkastoo hadda dhallinyaradu internet u badan yihiin oo baraha bulshada aada loogu badan yahay markaad bilaabaysay inaad noqoto nin baraha internetka kusoo bandhiga majaajilo muuqaalo iyo sidaad ii sheegtaba horey maxaa ka aaminsaneed youtube-ka intaada samaysan oo aad baraha internetka aada ka noqon nin la yaqaan horeygu waxaan ugu aaminsanaa watar aaladan 80% wax isdhigi karaa aalad iska ah in qofka uu caan ku noqdo laakiin lacag laga sameeyo ma aaminsaneyn dad baa igu dhaliya fakirkan waan ku tixraacay waan galay markaan gala maasha allah saa u waday hadda maanta heer baan ka gaaray mana aaminsan noloshaada way kaafi doontaa maanta ninka noloshaada kaafisa maasha reerkay ka bisho reer kale familkii meelo badan ba hadda ka biila maasha reer badan ba ku tirsan magaad insha hadda waan rajaynaa sidaan si ka macaan inay tagto meel ka sareysa tagta aanan badin insha Allah rajaynaya dhalinyarada kale waan ku dhiirigelinaya dhaqaalahaas aad ka heliso imise dhantahay way oran ka dhaa wallahi hore dhaqaalahan ka helo waa dhaqaalaan uu kaafiya reerka familkay kaafiya dhalinyarada la shaqeysana maasha Allah ku filan aan ku badboodi karno mararka qaar waxaa dhacda xitaa dhaqaalahan haysto heer ka gaaray inaan dhalinyaro diro oo nooyo miya orda bax fiido meesha ka soo qabto hawsha la qabto wax ka weyn ma laha kana sharafadana ma leh sakriye gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay ilaa intee baa doonaysaa inaad ka gaadhid isticmaalka barta youtube-ka ilaa waxa weye dunidao dhan laga barto yuusufow meel walbana oo barnaamijyadeeda ay gaaraan waxa weye aniga oo meeshayda joogana ilaa waxa weye dee waxa weye adduunka oo dhan barnaamijyadeeda laga xiisayo aanan soo bandhigo dee aniguna barnaamijyo qurux badan ummaduna ay jeclaysato dee anigana milgaya magac iyo sharaf iyo maamuus ii yeelaya saasaan jeclahay heer sare aan ka gaaro yuusufow hal abuurkayga aan kusoo bandhigo hibadeeda iyo mataqaanaa taalantiga anigu igu jira aan bulshada u dareensiiyo aanan waxa weye wax iga guuxaya aniga qalbigayga aan bulshada waxa weye aan ugu gudbiyo si ay mataqana iyaguna ay ugu faa'iidaystaan insha allah hal abuuro aad leedihiin ma jiraan oo idinka idin gaara oo barta youtube-ka aad dhalinyarada wax uga sheegtaan haa wax badan waanooyin baa jira wacyigelin baa jira dhiirigelin baa jirta hal abuurka anuu qaas iyo hotor waxa weeye inaan ruwaayadaha iyo fikrad aan abuuro dadka abwaanka wuxuu yaqaan ninka istikri abuuro ruwaayado waa jira short film yaa jira maskaxda xadiijiyay aan dhigay maasha allah waa iska badanta waxyaalo badan baa sababta waxa kan waxa weeye waa hadal oo hel adiga leey baan ku shaqeynaa waa qasbina maskaxda tuujin sababta inaan waxaan la raawo wax la kaafiyo haddaan la hadlo waxba ma hirgalay marka way jirta waxyaalo badan baa jira sida saaxiibka sirskaab kala cod macaan oo halaas buulay bilaa muusiga waa waxyaalo badan isku garqabnaa jirta saaxiib aan sala wadno maasha Allah way badan tahay fanada farqiga kama qodna horey shaqadaas yaa idinku dhiirigeliyay marka inaad noqotaan dhalinyaro ku shaqaysta baraha internetkana soo geliya muuqaalada majaajileeda ah heesaha iyo hal abuurka horta waa mahadsan tahay ninka la yiraahdo yuusufow maalin maamaha ka mid a anigoo meel jooga ayaa waxaan is aragnay gabar dhalinyaro aan saaxiib nahay oo gabar walaashay Soomaaliyeed waxay tiri niyow nin talentile baa tahay oo mataqaanaa socon kara oo bulshada wax u soo bandhigi kare ma youtube samaysatido meel ka soo baxay gabadha magaceeda waxaa la yidhahdaa khadra maxamed islaan waxaan ku dadaalay marka in aan waxa weye talentigaan bulshada usii gudbino maalintaas markuu igu dhiirada marka sidii baana kusii wadnaa insha allah waxaana jecelnahay ilaa waxa weeye meeshii ugu dambaysa inaan bulshada gaarsiino laakiin anagu waxaan rabnaa wax micno leh wax bilaa micno iska hadal lama rabno wax micno leh inaan bulshada usoo bandhigo insha allah talentigayga waayahay bal waxaad iga wartaa dhalinyaro kale waxaa jira oo dalka dibaddiisa jooga oo dalka ka maqan dhalinyaradaas ma uga faa'iidaysaan inay idinla soo xiriiraan idin weydiiyaan inay doonayaan muuqaal nooca ku saabsan xaafadda uu horey ninkaas dhalinyarada uu ku noolaan jiray sanadihii hore in isbeddel uu ku yimi bal barnaamijyada noocaas oo kale dhalinyarada dibadda jira ma uga falcelisaan xaaladda magaalada boosaaso oo kale ha way badan tahay hadda waxaa ka mid ah xusi karaaba ninka la leeyahay live media oo youtuber Soomaaliyeed oo Muqdisho jooga ah
xaafadda gaar ahaan boqolka buu shil leeyahay magaalada baskutaalo boqol buu shil leeyahay buu deganaan jiray waa jirtaa inaan u duubnay dad ka mid a familka xataa inaan sawiro ugu qaadnay fiideo ugu qaadnay aan u dirna waa jirtay rag badan waxaa jira dibadda ku nool oo na soo waca galabta xataa ugu dambeysay oo na weydiiyey waxa kan saan qaabkaan u bilownay meeshaan ka bilan si wax loo wado waxyaalaha la dhiga fikir dadku waa la talinaa sababtoo ah anaga beri baa wax u baahan karnaa sababta dad youtuber aan nahay beri baa laga yaabaa barnaamijyihii howlo kale naga galaan markaa sidaa laajin waa u falcelina waa sameynaa howshaas yuusuf waa mahadsan tahay horta way jiraan dad badan oo mataqaanaa dee yurub jooga oo kale oo kusoo wacayo oo kale meeshaa hebel aan joogi jirnay dee boosaaso keliya ma aha puntland oo dhan wuxuu kuleeyahay dad dhahaya mataqaana hadda xaafadaas hebel ama magaalada hebel iyo say qaabkeedii iyo say iyo isbedelka ku yimi iyo inaad noogu soo warrantid taasna waxa weye dhiirigelin bay annagana sii siinaysaa moogtahay iyo mataqaana inaan taalantigeena aan sii wadno iyo jacayl ana waxaan usii jeclaanayno waana mahadsan yihiin meel walbay joogaan baan dhihi karaa ummadda soomaaliyeed qaar ahaan ummadda joogta daafaha caalamka oo dhan gabagabada yuusuf horta adiga iyo idaacadda v o e iyo dhammaan dhegeystayaasha horta waa salaamaynaa waxa weeye waa dhiirannahay inaan horumar iyo mataqaanaa aan gaarnaan rabnaa iyo taalanta fiican aan bulshada usoo bandhigno idinkuna subscribe-ka iyo like iyo shaarkaan ugu xastinin aan leeyahay horay iyo horumar iyo waxaan rabnaa inaan mataqaanaa aan hore usii soconno geediga nala sii wada wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aan leeyahay dhammaan ummadda soomaaliyeedna waa salaamaya yuusufo gabagabada maxaa ku dar lahayd adiga dhalinyarada fariina u diraysid social mediaha gaar ahaan dhalinyarada youtube-ka ku shaqaysta wallahi kuwa aan youtube ku shaqaysta waa dad sababta maskaxdooda buuxdo waa niman hal abuuriin oo maskaxdooda dhiijiya laakiin waxaan tala sii lahaa dhalinyarada shaqalaanta ku caawanaysa oo tahriibka u maysan inay ku ordayaan bahalka youtube-ka leeyahay qalab ma rabo kaamarad balaayo kaama rabo moobeelka haddaa haysto asagaa kugu filanba inaad horumar isgaarsiso lacagna shaqayso badanaa fikradda dhalinyarada ma qabaan dhalinyaro badan baa hadda moobeelka qabtaa moobeelna waan ku qabtaa fiideo ku qabtaa muuqaalada qaar hadda kaamiradan waan ku qabtaa muuqaalada qaar aan sameeyo dhalinyaro waxaan kula tiri lahaa ninkii galaxy s waxbana ha iswaalin shaqa cidnaha u raadsan meelna ha fadhiisan subaxdii waxbana u xaadirino moobeelka iyo adiga wada tashta horumar isgaarsiiya u dhawaada dadaala waxaan loo dadaalo lama helo waxaan haddaad dadaasho waqtigiisa bil ka yar baa wax ku samayn kartaa caan waa noqon lacagna waa heli xaggee laga helaa shaqa noocaas maba jirtaan is dhihi karaa maantay ninka madaxweynaha caan baa ka noqonaysa haddaas dadaasho saaxiib dadaalo badi waa aad baan idiin salaamay adiga dhammaan dhegeystayaasha waana ku mahadsantiin barnaamijkan gaala waa tahay dhegaystayaal intaas ayaa toddobaadkani kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan uga hadlaynay caqabadaha ay la kulmaan dhallinyarada muuqaalada duuba magaalada boosaaso islamarkaana youtube-kooda ku madadaaliya dadka ku xihan waxaan u mahad celinayaa maxamed sakriye cabdulaahi iyo sakriye siciid axmed oo ka mid a dhallinyarada magaalada boosaaso ee isticmaala islamarkaana leh youtube-ka aniguna waxaan ahay yuusuf maxamed yuusuf oo barnaamijka halkan idinkala socodsiinayay intaa barnaamijkan lamid a ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo